Jabitaanka qalbiga bini'aadamka ah ma sameeyo cod ee wuxuu sameeyaa dhaawac aan dhiiggiisu bixin, dushana laga dheexan. Jabitaanka qalbiga bini'aadamka wuxuu horseed u noqon karaa erey aan laga fiirsan oo qofka lagu soo tuuro, ama ficil aan laga fiirsan oo qofka lagula kaco, kuwaasi oo sida dhimbisha inta ay u dhalaaliyaan qalbiga raad xanuun badan ku reeba. Xanuunkaasi inta uu la eg yahay waxay ku xiran tahay filashada ama filasho la'aanta qofka uu ku dhacay uu ka qabtay qofka uu kula kacay, iyo hadba xiriirka uu kala dhexeeyo isaga iyo qofkaasi. Rag iyo dumar qulubtooda midna si gaar ah ayay u jabtaa, mid walibana dareen gaar ah ayuu jabkaasi kaga tagaa, waqtiyo gaar ahna way ku soo kala jabaan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku dardaarmay dumarka in la ilaaliyo qulubtooda isagoo ku tusaaleeyay inay yihiin sida quraarad oo kale. Waa tii uu lahaa u dhowra sida quraaradaha, micno ahaan waa ha dhibina qulubtooda sababtoo ah si fudud ayay u jabi kartaa, ee ka taxadara. Jabkooda wuxuu u horseedaa inay hoos u ooyaan, uurku jirka gubto, kalsoonidoodana hoos u dhacdo, quruxdooda guudna ay gurto, qalbigoodana quus iyo duyf joogto ah weheshado. Ducooyinka nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa ka mid ahaa wacuudu bika min qahri rijaal, oo macnaheedu yahay rabbiyow waxaan kaa magangelayaa jabka raganimo, kaasi oo laabta ku dhaliya ciriiri iyo daciifnimo, awoodda naftana geliya quus, adowgooduna ay ku farxaan.